كسعته دمان قدومياش دقموين كي ديجانا ذا قبل كبنادر كسعته دمان هي أدها أمنية أوك تلس كعيدا كيلالنتا ديجان كحمر ورجلين iyadoo la fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirkii uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre 22 Agoost 2023 ee loogu hadlayay dardargelinta iyo xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho wuxuu maamulka gobolka Banaadir diiwaan gelin ku sameyn doonaa dhammaan garaashada la isticmaalay iyo kuwa aan la isticmaalin ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo goobaha lagu xareysto gawaarida gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada dhacafooraha magaalada sida Kaxda Darkenley, Daynile, Darussalam, Yakshiid, Garisbaalley, Hiliwaa iyo Gubadley. Labo waxuu maamulka gobolka Banaadir diiwaan gelin ku sameyn doonaa dhammaan guryaha aan la deganeyn ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo kuwa darbiyada ee ku wareegsan yihiin. Sidaa darteed waxuu maamulka gobolka Banaadir ku wargelinayaa milkiilayaasha garaashada ku yaala degmooyinka dhacafooraha in aan laga dhax fulin karin dhaxdooda falal lidi ku ah amniga caasimadda sida in wax laga dhaso dhaxtuuro ama lagu farsameeyo waxyaabaha qarxa milkiilayaasha guryaha aan la deganeyn iyo kuwa darbiyada ku wareejisan waxa loogu degayaa in dhaxdooda laga fuliyo falal lidi ku ah amniga sida in wax laga soo dhaxtuuro ama in lagu dhax farsameeyo waxyaabaha qarxa darbiyada ku wareejisan dhulalka aan deegaanka ahayn waxa cid milkiyadeedu iska leh lagu wargelinayaa in aysan darbigaasi ka dheeraan karin 1 mitir si loola socdo dhaqdhaqaaqa iyo waxa dhaxdiisa ka dhax socda si aysan u dhicin in laga dhax fuliyo falal ammaanka qalqal gelinaya haddii ay dhacdo in garaashyada ama guryaha aanu kor ku soo sheegnay ama deegaanada aan la deganeyn ee dhulalka darbiyada ku wareejisan in laga soo dhaxtuuro ama lagu dhax sameeyo wax waliba oo carqaladeynaya amniga caasimadda waxa la wareegayaa gabi ahaan garaashkaasi ama gurigaasi cidda milkiyada iskalena waxa la tiigsanayaa sharciga ugu dambeyn maamulka gobolka Banaadir wuxuu shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan gobolka Banaadir ugu baaqaya in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana culeysyada amni ee jira la soo wadaagaan laamaha ammaanka si loogu hortago dhagaraha loo maleegayo shacabka iyo falalka lagu khalkhal gelinayo amniga caasimadda.